السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabta waa koorsadeeni ayaa wali inoo socota network fundamentals. maanta waxaynu ku arki doonaa qodobka ah internet working devices. waa maxay internet working devices? internet working devices waxaa loo yaqaanaa qalabka shirkadda gudaheeda keena internetka, amaba haddii aynu si kale u dhigno networkeena aynu haysano haddii aynu baahano wax interneta qalabka inoo keenaya ayaa la dhahaa internet working devices. sidoo kale waxaa kamida routerka ayaa kamida iyo sidoo kale wireless router. aynu isla arki doono waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin. haddaba si aynu soo dhaweyno fahanka waxaynu isla dul tagi doonaa halkan. waxaynu ku haysanaa network ayaynu ku haysanaa networkaas oo ka kooban componentskan kala duwan kuwaas oo ah PC amaba kombiyuutaro, printers iyo sidoo kale switch teeni isku keen xidhaysay iyo access point-geeni, dhammaan kuwan oo isku keen xidhaya networkeena. marka networkeeni ayaynu waxaynu u baahanay inaynu internet aynu helno. internetka shirkadaha bixiya waxaa loo yaqaanaa ISP ayaa loo yaqaanaa ama internet service provider ayaa loo yaqaanaa. waxaanay ku bixiyaan laba hab ayay internetka u bixiyaan. habka koobaad oo ah DSL oo haddii by mobile ay ku bixinayaan amaba xagga taleefeenada waxay ku bixinayaan DSL ayay internetkaas ku siinayaan. sidoo kale habka labaad ay ku bixinayaan internetka waa WISP oo loo soo gaabiyo wireless internet service provider, kaas oo ay ku siinayaan hab wireless ay ku siinayaan amaba ay cable ay kugu siinayaan internetka. marka waxaynu la xiriirnay kaba soo qaad shirkadii ayaynu la xiriirnay. shirkadii waxay inoo soo dirtay internet ayay inoo soo dhiibtay. internetkaas iyagu waxay ku soo dhiibayaan amaba ku keenayaan xadhig ayay ku keenayaan. xadhigaasi marka uu soo gaadho goobtaada amaba halkii uu ka jiray networkaagu waxaa suu kaa xidhaya wax la dhaho internet amaba wax la dhaho internetwork devices ayaa suu kaa xidhaya. internetwork devicesku waa sida router amaba wireless router. oo routerku waa component weyn kaas oo ay adeegsadaan shirkadaha oo aynu arki doono. sidoo kale wireless routerku waa routerka aynu markasta aragno ee caanka ah kaas oo yaala guryaha, sidoo kale businesska iyo waxyaarihii lamid ah. markaa kasoo qaad routerna waynu helnay, waxaynu ku xidhaynaa xadhigii ay shirkaddu inoo keentay ee ISP-ga ahaa ayaynu ku xidhaynaa. sidoo kale waxaynu sii dhex marin doonaa xadhig kale ayaynu ku xidhayno internet networkeena. markaas sidaas ayaynu ku haysanaa iminka internet. sidoo kale haddaynu dhinac kale iska dul taagno routerku waxa uu isugu kaa xidhayaa laba network iyo wixii ka badan. sidoo kale routerku waxa uu kuu sahlayaa inaad hawada aad u saartid amaba aad dibadda aad u saartid networkaaga. tusaale ahaan waxaynu haysanay markii hore network keliyata oo inagu koobnaa. markii aynu routerka ku xidhnay waxaynu awood u yeelanay inaynu ku sii xidhno shirkadii internetkayna siin lahayd. marka habkaas kala duwan ayuu routerku u shaqeeyaa. haddaba aynu isla eegno qeybaha kala duwan ee uu routerku ka kooban yahay. routerku waxa uu ku yiri connected waxa uu isku xidhaa 2 or more data lanes, laba iyo wixii ka badan oo ay xogtu soo dhex marayso from IP address, iyagoo leh IP address kala duwan ama different IP address kala duwan leh. tusaale ahaan IP addresska waynu tegi doonaa casharaan gaara, laakiin aynu isla sii yar fahano. tusaale ahaan networkeena waxa uu sitaa IP address
class B ayuu sitaa. sidoo kale shirkaduna waxay siyataa class C ayay siyataa. marka waxa uu isku keen xilayaa different IP address amaba IP address oo kala duwan ayuu isku keen xilayaa routerku. sidoo kale waxaynu soo sheegnay in shirkadaha bixiya internetka loo yaqaano ISP ay kugu siinayaan sidoo kale wireless internet service provider ama DSL ay kugu siinayaan. halkan haddaynu u nimaano routerka yar ee halkan inooga muuqda waa ka la dhaho wireless router, kaas oo aynu markasta aynu aragno. waxa uu ku yiri most familiar type of IP router. ka ugu caansan routeriska waxaa la dhahaa IP router ayaa la dhahaa, oo waa routerka yar ee halkan inooga muuqda. waxaana laga adeegsadaa sida homeska guryaha kale amaba small office-ka yar ayaa laga adeegsadaa. waa uu fudud yahay xagga IP forwarding-ka ama packets-ka uu qaado ee u dhaxeeya home computerska amaba qalabka guriga yaala iyo sidoo kale shirkadii internetka bixinaysa. marka kanna waxaa loo yaqaanaa IP router ayaa loo yaqaanaa. waa routerka aynu markasta aynu aragno. sidoo kale waxaynu arki doonaa routerka noocan ah kaas oo ay adeegsadaan shirkadaha waaweyn ee bixiya internetka amaba waxaa adeegsada large businesska. kombaniyada waaweyn ee businesska bixiya ayaa adeegsada. noocan waxaa la dhahaa core routers ayaa la dhahaa. core routerska usually waxaa adeegsada enterprise routers. shirkadaha enterprise-ka amaba shirkadaha ayaa adeegsada. waxaanu isku xidhaa large business aada u fara badan ayuu isku xidhaa amaba business weyn ayuu isku xidhaa amaba ISP shirkadaha ISP network ayaa adeegsada. xagga awoodda waa powerful weeyaan. sidoo kale waxa uu forward gareeyaa xogta ayuu forward gareeyaa ama daatada ayuu forward gareeyaa isagoo oo ku soconaya high speed. waxaanu sii dhex mariyaa cable-ka la dhaho fiber optic oo aynu u dultegi doono casharaan gaara. fiber optic ama optical fiber ayuu adeegsadaa routerkani. marka halkaasna waxaynu ku aragnay waxa uu yahay core routers. haddaba waxaynu arki doonaa siyaabaha aad ku dooran kartid marka aad soo iibsanaysid routerska. routerska dhowr hab ayaad ka eegi kartaa. xagga connectivity-giisa ayaad ka eegi kartaa, kaas oo ah siyaabaha uu wax ugu soo xidhmayo amaba xagga connectivity-giisu in uu wanaagsan yahay. sidoo kale bandwidth-kiisa ayaad ka eegi doontaa oo routerka kuu qaadaya components yar iyo ka kuu qaadaya devices aada u fara badan isku mid maaha. markaas xagga bandwidth-ka ama network-gaaga sida uu fidinayo ayaad ka eegi doontaa. sidoo kale waxaad ka eegi doontaa wireless capacity-ga ama awoodda uu leeyahay xagga internetka ayaad ka eegi doontaa. sidoo kale waxaad ka eegi doontaa xagga setup-ka iyo management-iguba inay fudud yihiin ayaad ka eegi doontaa. marka dhowrkan hab ayaad iska eegaysaa marka aad router aad soo gadanaysid amaba router aad u baahatid. sidoo kale qodobka ugu dambeeya aad ka eegi doontid waa xagga security-ga iyo inuu security-giisa aad isku haleyn kartid oo uu wanaagsan yahay. haddaba waxaynu arki doonaa manufacturerska soo saara routerska kala duwan ee ay adeegsadaan shirkaduhu amaba home office-ku ay adeegsadaan. shirkadaha badanaba ugu caansan ee manufacturerska soo saara waa kuwan hoos inooga muuqda. waxaa ugu caansan shirkadda la dhaho Cisco, Nortel ayaa ku xigta. sidoo kale shirkadahan kale ayaa ku sii xiga ilaa Tricom laga gaarayo. sidoo kale xagga wireless routerska yaryar waxaa ugu caansan shirkadda la dhaho D-Link iyo shirkadda la dhaho Linksys. kuwa labada shirkadoodna waxay ugu caansan yihiin xagga wireless-ka ama wireless routerska yaryar ayay ugu caansan yihiin, taas oo aynu soo aragnay. xagga core routerskana waxaa ugu caansan
Cisco ayaa ugu caansan ama shirkadaas ayaa ugu caansan. Marka waxaan filayaa inaynu isla fahanay waxa uu yahay internet working devices-ku. Internet working devices-ku waa devices-ka network-gaaga ku keenaya internet-ka oo ay yihiin router-ka amaba wireless router-ka. waxaan filayaa inaad si fiican aad u fahanteen casharkan. haddii aad wax badan ka faa'iiday fadlan asxaabtaada u share garee, subscribe-tana noo saara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.